السلام عليكم ورحمة الله walaalayaal kusoo dhawaada video kale setupkii aan ku jirnaa weli setupkii hore waxaan rabaa insha Allah inaan ka hadlo marxaladaha ama waxyaalaha levelada uu marayo qofka waxaan ka rabaa inaan ka hadlo level kasto waxyaalaha looga baahan yahay qofka iyo habku inuu u dhaqmo loo baahan yahay waa ogtihiin programmingka uu adag yahay qof kasta oo programming ku jiro laakiin waxaa samayn kartaa macnaha talooyin ayaan ku siinayaa talooyinkaas ayaa fiirin kartaa haddaad tahay qof oo beginner ah haddaad tahay qof intermediate ah haddaad tahay qof macnaha oo advance ah kulli waad ku dabaqi kartaa meesha aad joogtay levelka aad joogtay waan ka hadlayaa si macnaha aad macnaha u aragtid kulli aniga waan soo maray I'm not saying aniga expert 100% ku ahay laakiin luqadaha aan ani aqaano waan aqaana I know I can build something waxaan ku dhisi karaa so that's why isleeyahay luqadahaas specifically waxaan ku ahay advance aan ku ahay laakiin waan soo maray beginner waan soo maray intermediate waan soo maray especially luqadahaas haddana waan marayaa oo luqado waxaa jiro aan ku ahay beginner luqado waxaa intermediate aan ku ahay qasama qofku inuu yaqaano luqad kasto muhiimadda waxaa weeye waa inaad taqaan luqadaha u baahan tahay iyo luqadaha oo marketkaada aad uga baahan tahay maanta haddii ay suuqaada ama meesha aad joogtid ama waddanka aad joogtid aan laga isticmaalin kaba soo qaad C# camal what's the point of learning sababta u baranaysa maxay tahay C# markaas marka way fiican tahay inaad taqaanid technology kala duwan laakiin waqtigaada limited waaye waqtiga haystid ayaa limited ah marka waxaa la rabaa qofka inuu niyadda taas ku hayo oo uu ka faa'iideysto waqtigu hayo okay so waxaan sameynaa insha Allah half waxyaalo i qoran so I'll just look at the note-ka sidaa darteed marka waxaan jeclahay I have to keep everything organized si aan waqtiga in kugu badbaadiyo talking about the waqti so qofka markuu beginner yahay oo uu yahay oo no clue ma yaqaano programmingka kaba soo qaad qofku waxa weeye waa qof let's talk about someone cabdi kaba soo qaad cabdi ma garanayo programmingka weligiis macnaha programming ma sameynin marka cabdi waxaa laga rabaa marka in uu sameeyo waa inuu fahmo terminologies wax la yiraahdo waxyaalaha ereyada loo isticmaalo programmingka inuu yaqaano weeye sida camal IDE markii la dhaho ama text editor markii la dhaho ama code editor markii la dhaho for example camal git ama github markii la yiraahdo kaba soo qaad stack overflow waxay ka mid tahay programming terminologies stack overflow waa maxay waa website dadka su'aalooda looga jawaabo oo programming ah marka waxaa jiro meelo laga bartaa jiro wax kastana waa google garan kartaa aad dhigi kartaa ereyga maqlaysaa waxa leedahay ereygan muxuu yahay what is aad leedahay this ama qoraysaa ereyga ku qoraysaa google marka waxyaalo waxaa jiro oo macnaha dadka iska dhahaan qof waxa laga yaabaa programming inuunan macnaha ka fikireynin aniga xataa waa iska soo qoraa laakiin sometimes waxaan target gareynaa dad beginner sometimes waxaan target gareynaa dad oo advance ah marka it depends on qofkay ku xiran tahay so waxaan dhihi lahaa haddaad beginner tahay marka hore terminologieska inaad baratid marka labaad inaad ka fogaatid tutorialska advancega tutorialska macnaha ka hadlayo waxyaalo advance ama waxyaalo sare ka hadlayo haddaa HTML CSS ku jirto kaba soo qaad ha aadin tutorial oo advanced JavaScript ka hadlayso ha aadin waa moral jaba kugu dhacayo confusion kugu dhacayo waxyaalo badan kugu dhacayo so waxaa la rabaa levelkaad inaad taqaanid and that comes from haddaa tahay qof macnaha haddaa haysatid qof oo mentor ah ama ku mentor gareeyo uu ku sheegaa wuxuu leeyahay waxyaalahan ha baranin waxyaalahan baro levelkaadu fiirinayaa ama ku test gareynaya haddaa iskuul ku jirto kaba soo qaad imtixaan ka qaadan imtixaankaas wuxuu ku leeyahay levelkan u baahan tahay halkaas aadin don't touch that go for this so mentor ama school ama maxaa la jiray bootcamp ama meel internetka aad ka heli kartid dad aad weydiin kartid wax waa muhiim okay teeda kale waxaa samaysaa buugaagta loogu talagalay programmingka oo beginnerka inaad gadatid siiba kuwa loogu talagalay general concepts programming concepts programming fundamentals waxyaalahaas qasama inay luqad ku dhisan yihiin gooni ah laakiin conceptiyada xataa code inuu ku yaalo maaha book any code inuu ku yaalo maaha waa in ay sharaxayaan conceptiyada ka dambeeya programming language waa maxay OPP waa maxay OOP object oriented programming waa maxay functional programming oriented waa maxay functional programming waa maxay waa maxay classes maxaa laga wadaa all this stuff waxaa laga wadaa terminologies kala duwan iyo conceptiyada kala duwan so code inuu ku tuso xataa qofka muhiim aha muhiimadda waxaa inaad fahantid books haddaa awoodi karin waxaad samayn kartaa internetka ka aqrin kartaa website-yada oo programmingka looga hadlo ayaad soo subscribe garan kartaa groupkaygana meesha waan gelinayaa so Somali programmers waa Facebook group aniga waa iska dhahay groupkayga laakiin dad badan ku jira meesha oo soo geliyo wax
waa programming group way oo Soomaali leedahay oo Soomaali ku jirto marka ana bilowga sameeyay laakiin dad badan ku jiro ka faa'iideyso insha Allah soo gal wax ku soo comment gara wax soo post gara ilaa aad ugu runay ka faa'iideyso dadkan u faa'iide meelahaas aad gali kartaa dadka su'aalaha weydiin kartaa waxa kale oo sameyn kartaa waa ina luqad aqaatid soo programka marka bilaabaysid waa ina luqad qaatid oo luqad dooratid doorashada luqad doorasho waxay ku xiran tahay meesha aad joogtid haddii ka soo qaad magaalo aad joogtid aan laga isticmaalin Python oo dhan hadaa laga isticmaalin oo waxa raadisay shaqooyinka raadisay dadka weydiisay haddii shaqooyinka internetka la soo gelinin kamiriga waxay waxa leedahay assalaamu calaykum wa calaykum salaam waxaan rabaa inaan shaqo meeshaas ka helo technology gooni noocee ayaa isticmaashan luqadaha programming noocee isticmaashan inaan bartaan rabaa qofku wuxuu ku leeyahay waxaan isticmaalaa this and that hadduu ku dhihin waxa sameyn kartaa qof u shaqeeya kamirigaas la hadli kartaa hadii kartaa niho adoon waxba ii sheeginin information specific waxa ay sheegtaa technology isticmaalaan oo programmingka luqadaha programmingka isticmaalaan si aan u sii barto marka dadka weydiin kartaa muhiimadda ugu weyn waxa waaye meesha aad joogtid ama waxa rabtid inaad pursue gareysid ama aad rabtid inaad baratid inaad luqadaas barataa muhiim ah soo hadaa rabtid inaad baratid data science waxa muhiim ah inaad baratid Python hadaa rabtid inaad baratid ka soo qaad mobile development inaad telefoonada apps kood sameysartaa definitely waxa u baahan tahay markaas Kotlin ama Java waxa kale u baahan tahay Swift u baahan tahay so wax ka goal ah inaad leedahay ama suuqa marketka meesha aad joogtid luqadda laga isticmaalo inaad ogtahay muhiim ah taasna waa baaritaan iyo homework iyo waxa u baahan tahay inaad shaqo kala geshid waxa kale oo ku xigta taas waa inaad isku qasabtid in aad qalad samaysid taasna dadka badanaa ma ka hadlaan laakiin waa inaad isku qasabtid inaad soo qaadatid code aad qaladid ka bacdi aad saxdid saxitaanka wax saxiisid ayaa wax ku baran kartaa aniga actually that's habka aan aniga wax u barto taas waaye so hadda ka soo qaacamal maal dhawto waxaan bilaabay inaan practice gareeyo GraphQL video kalena uga hadlay GraphQL aniga weligay ma taabanin ever waan maqlay casharo badan bugaag waan ka akhriyay waxyaalo badan waan ka akhriyay conceptiga waan fahansanaa laakiin uma haynin fursad aan ku barto isla markaasna uma haynin wax aan u isticmaalo so there was no reason sabab ma jirin aan u baranayo macnaha ma jirin laakiin hadda waxaan sameynayaa insha Allah goalkayga waxa weeye inaan Alif Cloud aan ku dhiso React iyo Node.js iyo GraphQL so it took me laba bari gudaheeda ay igu qaatay inaan GraphQL aan isticmaalkeeda bilaabo so first thing aan sameeyay waxay ahayd markii ugu horeysay website GraphQL aan aaday graphql.org inuu yahay umaleynaya yaa aaday kabacdi waxaan sameeyay waa akhriyay wuxuu GraphQL ku saabsan yahay waxaan fiiriyay example aan fiiriyay kabacdi waxaan sameeyay YouTube aan galay hal video aan soo qaatay oo gaaban 10 minutes 15 minutes maybe 20 minutes aan fiiriyay waan fiiriyay exactly suu isticmaalay qofka kadibna waxaan galay GitHub Google aan galay waxaan geliyay Node.js maxaa la jiray GraphQL project qof wuxuu hore u sii dhisay yaan soo copy garaystay waan fiiriyay waxyaalaha si u shaqeynayaan waan test gareeyay waan browsey soo u shaqeynayo kabacdina waxaan ka bedelay and then waxaan idhi okay I think I got it so kabacdi documentation kan tagay and I just wrote down my own GraphQL markaas laakiin saas micnaa it was not that easy it was a lot of testing ahead qaladaad badan marka sameeyay so markasta oo wax soo qaato oo iga halaabayn kabacdina waan dib ugu laabanay documentation ko akhrinayay Google aan gelinayay waxyaalo waan akhrinayay so the best way wax lagu barto waxa weeye bas ma ahan tutorial waxa weeye inaad soo qaadato wixii jebi kabacdi habe kabsa qado adiga technology computer baranaya amal computer caadi physically computerka in lagaaga sheekay bas kuma baranayso waxa u baahan tahay inaad soo qaadid kala bixisid isku xirxirtid hadduu ka halaabo aad inaad saxdid saxitaankaas aad saxaysid oo processkaas aad ku jirtid aad fikiraysid waa processka wax lagu barto that's the best way I think habka ugu fiican oo wax lagu baran karo of course application oo la dhisay oo production ha jabinin haleenin waxaan ka wadaa wax test la braaweynayo aku braaweynis internet ka raadso kabacdi halle kabacdi wax ka bedel adiga customize gareyso wax ku sameyso all this stuff saasa ku fahmaysa isla markiiba waa la qabsanaysaa waxaa kaloo akhrisaa buugaag badan akhri waxaa akhrisaa qoraalo badan documentationka I think markaa beginner taa ku adkaanaya laakiin waxaa sameysaa buugaaga akhrin kartaa waxaa akhrin kartaa iyo meelo website laga qoray Medium waa meesha ugu khatarsan medium.com website laha jiro oo lagu soo qoro article far badan oo ka hadlayo waxyaalo kala duwan oo ku barayo
actually ana xataa maalin subscription ku sameeyay $5 waa bishii sababtoo waxaan rabay inaan article badan oo media article badan GraphQL ku saabsan inaan akhriyaan rabay xoogaan ka akhriyay ilaa 5 ka akhriyay I was like okay I think I'm good laakiin information carada ka badan dad khatara ku jiro masha Allah it's good ana xataa waxaan ku qoraa meeshaan la yiraahdo Medium so Soomaaliyan ku qoraa so Medium iga raadiyo xaq lisan Duraan Ali Medium okay so taas waa beginner-ka way so wax aqris terminologies ina fahamtid inaad basically aad baratid conceptska fikradaha programming ka dambeeyo that's the beginner-ka intermediate-ka marka dhexdhexaad noqotid maxaa sameynaysaa marka so qofkii uu bartay waxaas I know all the terminologies-ka xoogaa comfortable waxaan ku ahay programming-ka waa qori karaa luuqad waxaan sameyn karaa all that stuff waxaa lagaaga baahan yahay waa inaad community ka mid noqoto al rabaa inaad qof muuqdo oo online community-ga ama physical community ka mid ah inaad noqoto al rabaa oo aad ka hadisho arrimahan programming-ka waxaa kale oo rabaa in aad bilaawdid inaad dhistid applicationo haba ahaado mid yar xataa ahaado basic ha ahaado even hello world ha ahaado hadduu rabo wax dhis adoona wax dhisin ma dhihi kartid programmer ahay you can't say that so wax inaad dhistid waaye waa sida adoo dhahay camal waxaan ahay carpenter ahay qof meelaha wax dhisaan ahay laakiin waxa weli ma dhisin so how are you inaad dhistaan I mean yes I mean it's good idea inaad macnaha wixii taqaanid laakiin haddii aad implement gain karin waxba macna kuma sameynayso waa inaad documentationka aqriskiisa inaad fahantid so javascript haddaad baranaysid Mozilla MDN mala Mozilla documentationkeeda inaad si fiican u fahansan tahay sida loo isticmaalo PHP sidoo kale Python documentationkeeda I think it's kind of ugly habkay u sameeyeen runta hadii laga hadlo Python documentationkeedu fiican yahay it's really good laakiin habku u qoran yahay stylekiisa ma ahan modern ma aha so it looks really ugly like waa text fara badan waa dheer but muhiimadda waxa inaad wax barato waa muhiimadda website kale badan oo jiraan oo documentation fiican sameynaya laftirkooda waxaa kale oo rabaa in aad noqotid qof ilaahay uu ku roon yahay comfortable ku ah inuu ka hadli karo conceptska so su'aal hadan ka weydiiyo ku dhaho kaba soo qaad what is maxaan ugu baahanahay CSS maxaan ugu baahanahay JavaScript and tell me JavaScript variable maxaa laga wadaa noocyadee u kala baxaan variable-ka JavaScript-ga waxyaalahaas hadii lagu weydiiyo inaad comfortable ku tahay ka jawaabi kartid waa inaad ka jawaabi kartid back endiga muxuu yahay haddaad rabtid inaad back endiga focus garaysid to back endiga muxuu yahay database-ka muxuu yahay luqadahee loo isticmaala database-ka all that stuff in aad fahansan tahay is very important aad bay muhiim u tahay si aan videoga aan usoo gaabiyo waxaan aadaya advance aadaya dadka badankood janaalkan ku xiran advance ma aha laakiin waa gaari doontaa insha Allah and try your best advancega waxaa la rabaa marka inaad noqotid qof specific wax gooni focus ka saaro waxaa la rabaa inaad noqotid Python developer front end developer specific waa inaad goal aad leedahay speciality inaad leedahay muhiim waaye haddaad tahay qof advance waa in aad leedahay goal iyo yool aad hiigsanayso waxaan rabaa inaan sameyso business waxaan rabaa inaan dhiso application noocaas goalkaada waxaa weeye waa one specific goal oo rabtid inaad gaartid waa inaad leedahay routine so markaa subax soo kacdid what is routine-kaada oo development-iga muxuu yahay so you have a setup you have a system all that stuff waa inaad leedahay saan ka hadlay setup inaad leedahay waa inaad leedahay computerka markuu qofka galo you know exactly what to do advance markaa tahay waxaa loo baahan inaad isticmaalka IDE-ga ama Vim isticmaalkiisa inaad ku tahay okay ku tahay Linux commands-ka inaad ku tahay okay Linux commands-ka inaad si fiican u taqaanid ka dhex bixi kartid Linux is very important haddii hadda Linux lagu dhiibo without the GUI-ga inaad ka dhex bixi kartid is important commands all the Linux commands inaad kind of taqaanid oo comfortable ku tahay mouse-ka isticmaalkiisa dhacirka inaad u fiirisid is important I know dadka beginnerka tan way ku adag tahay laakiin mouse-ka isticmaalkiisa actually waa xanibid wey actually isticmaalka GUI-ga ama graphical interface-kana waa xanibid oo ku xanibaya so inaad ka baxdo graphics-ka dhanbo in aad iska turto wixii graphics computerkaada ku jiro dhan aad isticmaashid only Vim ama aad isticmaashid terminal ama that's it you just waxaas isticmaalaysa haddaa file soo download garaysanaysa haddaa file samaynaysid so markaan dhaho waxyaalahan oo sida shellka iyo terminalka isticmaal micnaheeda ma ahan qof khatar iska dhigo cool ahoo kaaliska arag oo programmer caadi ahan waxaa garan kara micnaheeda ma aha
laakiin actually waa wax la cadeeyay oo proven ah oo ku badbaadinaya waqti fara badan aad ku bixin lahayd click here click there intuu load gareysmayo waxaan all that stuff you meesha ka bixinayaa sanadkii waxaa laga yaabaa intaasoo saacadood inuu ku save gareeyo marka haddaad tahay qof advance ah oo waqtigaada muhiim waaye it's very important waqtigaada every second waa muhiim micnaheeda maaha qofka beginning waqtigiis muhiim ah laakiin qofka oo advancega waxyaalahan lacaga lagu sameeyaa so minute kasta ama daqiiqad kasta way xisaabsan tahay oo lacag baa lagu xisaabinayaa marka waxyaalahaas guwiga isticmaalaysid waqti badan ay ka haluminayaan so laakiin haddaad tahay qof beginner ama intermediate waxbaa ka walwalin just try your best inaad baratid waxyaalahan isku day waxaan ka hadlay waan ka hadlay video gid aan ka sameeyaa jiro iyo GitHub si loo isticmaalo iyo commentska yararka oo sida terminalka commentska loo isticmaalo mustaqbalkana mooran ka hadli doonaa insha allah sida Linuxan ka hadli doonaa oo dad badan aad micnaha u xiiseeyaan waxaan dhihi lahaa haddii aad tahay qof micnaha rabo between Windows iyo Linux hadaa haysatid oo computer Linux kusoo shuban kartid waxaan dhihi lahaa Linux kusoo shubo aan fahanna micnaha habka Linux u shaqeyso iyo sida commandska Linuxka micnaheedu ma aha Linux wuxuu kale leeyahay mid oo GUI leh sida Ubuntu camal iyo waxay leeyihiin micnaha GUI oo sida Windows camal waaye laakiin also waxaa samayn kartaa shellkooda ama meesha wax lagu edit gareyn lahaa codekii ayaa soo bixin kartaa oo isticmaal kartaa is very easy Windows is very hard way adag tahay Windowska inaad isticmaasho waxyaalahaas so I will say try your best inshallah isku dadaal waa gaari doonta intermediate-ka waa gaari doonta advancega niyadda khayr u sheeg insha allah keep going and inshallah anigana waxyaalo badan aan soo gelin doona si uga faa'iideysataan subscribe the videogan ama channelkan subscribe ku dheh si uga faa'iideysatid videoyaasha soo socdo khayr aan idin rajeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh